qasaan idin sheegaya bari baan anagu meesha afgooy jamaaca oo khuruuj fi sabiilillah u baxday baan raacay anoo xamaran ka baxay xaggantay marka nin waxa ku jiray dadkan oo cadcadka oo reer afgooye ah ayaa wuxuu ahaa nin nashiid oo daaci oo khuruujkaas iyo baxo sheeku ka sheekay wuxuu yiri aniga sababtaan khuruujkan ku bilaabay markii hore wuxuu yiri nimankan aad u lama haynino masaajidka markay yimaadaan xataa geesi waxbaan uga leexleexan jiray waxa dhacday wiil niman Pakistan ka yimid masaajidkan afgooy ku soo tagay anna wuxuu yiri dukaan ba meesha ku leeyahay tafsiirna masaajidkan ka akhristaa xogay waan maalintaas baan habeenka baan isaga naxay ma iska ag fariisatay waa iska ag fariistay marka hadalka dhamaaday waxay dhaheen wanimayo waxaan u soconaa waa lugeynaynaa tuulo oo intaas oo kiiloomitir ma 10 buu igu yiri ma 15 hadda ma xusuustee oo baadiyaha ku taal baan u soconaa yaan u ducaynaa oo maaragtay noo nusreynayo na raacaya marka ana diyaar baan idin waa idin raacay sidii baan u raacay waa lugeyno yiri tuuladii baan tagnay habeenkii tuulada masaajid male geed quraca ayaa waa laga samaystay oo lagu tukadaa buu yiri oo salaadna waa dugsina waa geedkii iska degno yiri meesha alaabta la dhigtay habeenkii markii aan sii seexanayno furaashkii nin walba furaashkiisii dhigtay mas iyo abeeso waxay tahay ma ogi weyn baa kor ka soo dhacay yiri geed korkiisa oo aad weyn abeeso mas maxaa la yiraahdaa afkan afisuudan urbu هذا بقرنا مسوينا ماشي كسر دولك كسر بدو فراش كيس كل عين كدبنا أنتوا عرري بوحو قلي أود الدح قلي ولا كلا بودو نقول بمل بودو لا كلا عرري توش ماشى نل ملأ توش بالله هيستا ولا الرادي هبين كاسو ولا واي مس كاس ميو كسي بحي ولا أركي وين يقولوا له ما ماشوا كسي قلي ما ماشى نكون حجران لا بقول مركا نكي أضيق أوها أمير كأوها جماعة الأمير إليه المقتهي أيها وحيري ولا تشهد وحالي أن تشهد بل ورها لك حين سمينا وقت يوددنا ولا الجوجا ماشى ملا سحان كره رأيي قال قاعد والبلد معي كلها هذه وردنا معي كلها أدنا معي كلها وحيري وحال لو بتي رأيي إن ماشى أنك جورنا مالك لا أنت ما دام ماشي عدو أنكو أرجلي هذا أنا مجهدنا نكي وحيري بويري الريام لو كان وحيري مد بيني ويدينه حديث النبي ما مغشين بويرو صحيحة وأوليه من نزل منزل مال نكي تصدق سفر أو مال دقا هبين كاس أو فقال يراها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق دعاء دعيسته لم يضره شيء حتى يرتحل شيء وحبك مدبه إلى أو ماشى كجورو حديث كامل سومري ها بيده وانا سومري ما مقشين وما قال هي حديث كاس تطبيقي شعاوة لجوهم أمير كنا سجوا بوقت وركي سلام يسوع عليك وحوير حديث كاس هبين كي لهير قليل لها بان جوجنا ماشى كتجمل نوم والبوت على كنت عيشون فراش كاجنا سيحو يقين ربنا قلبي كسو قودو ما دام النبي هذا الكايري انه دب يحي waxba kuma yeelan wuxuu ninkii ba ii sheekaynayo Soomaaliga aha ila qisada anigu ma joogin wuxuu yiri nin walba faraashkiisii buu seexday waa gogladay aniga faraashkaygii baan seexday meeshan fariistay wala ducaystay nin walba ducadaas oo akhristay wala seexday wuxuu yiri iyagii Pakistanka ahaa ee safarka ahaa هذا ودارنا يا سو حول والله كما سو وريجين 8 دقيقة أما 5 دقيقة أما 8 دقيقة كل ما ودخورنا يمر خورو هرد كلام واسع ده وقمن والله رسول وين هي كان عد مليه نعم وحلو ويسحدين لكن أنيجي هردي وأيجي مويس هبين كيو دنقل قلش مركان شنقر يرمغل وحد واكه وصبح هذوك غنيري
marna waa iscanaantaa waxaan ilaa buu yidhi oo kaale maxaad kaga duwanaatay dadkaan ducadii akhriyeen waa akhrisay adi maxaa la seexan weyday iyagoon u saaxdeen wallahi wuxuu yidhi sidii loo ahaa qiyaamu leyl bay u kaceen habeenkii waa kaceen waa tukadeen salaadii subax baa la tukaday anaa su-aal marka wadaadadii weydiiyey waxaan idigu ma wax kala akhriseen mise kanun baa akhrideen may kanun baan akhrinay hadda idinku waa seexateen anigu habeenkii ugu dheer adduunkii soo mar u ah ma seexan maxaa jira wallahi waxay dhaheen insha allahu dee kolley ilaahay safarkeenna iyo masaakiin baan noo dibaddaan ka nimido ilaahay intaa noogu naxariista oo yaqiinna siiyaa laga yaabaa adigana haddaad dadaasho ani maalintaasaan bilaabay buu yidhi oon idhi wallee iyo bilee waxaan aad heshee waa inaan goob doono aniguna khuruujkii meeshaan ka bilaabay buu yidhi sidii baan khuruujkii ku taagnay bal inaan yaqiintaas soo taabto marka alyaqiin calaa kalaami illaah wa kalaami rasuuli illaah xadiid kale oo uu nebigu odhanayo man qaala xiina yakhruju min beytihi gurigiisa markuu ka baxo ninkii yidhaah bismi illaah tawakkaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah hadda waa taqaan miya yaa ku baray macallinkaa ku baray maa sha allah macallin fiican baad leedahay zaadaka allah guriga markaa ka soo baxaysa ma dhahda mar kaste ha iloobin bismi illaah tawakkaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah sheekadeyda dhegeysa marka sheeko adigoo kale ku saabsanaan kuu sheegaa ma taqaan hooyaa kuu sheegtay hooyo fiican baad leedahay adiguna maa sha allah adigana horaad ka xusuusataa wallahi ilma fiican baad meesha ku haysaan bismi illah tawakkaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah sheekaa dhacday ilmo yaroo kanoo kale ah yaa ducadaas ku ducaystay iskuulku aad wadamadaas carabtay ka dhacday subaxii marka fasalka ciyaalkii baa adigu qaar edeb darro sameeyeen isagoo edeb darro ma sameyn isaga edeb darro ma sameyn macallinkii wuxuu yidhi yaa sameeyey arrintan way sheegi waayeen wuxuu yidhi kulli waa idin dilayaa mid walbaba waa inaan 5 ulood ku dhuftaa gacmaha taaga kanuu ka soo bilaab yarkii markuu soo gaadhay yarkii wuxuu yidhi macallin aniga ma idili kartid maxaa dhacay maxaa ku dili waay wuxuu yidhi aniga gurigayga saaka markaan ka soo baxay waxaan idhi bismi illaah tawakkaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah waxaana la ii yidhi malag baa ii dhawaaqay sida nebigu noo sheegay wuxuu yidhi wuqiita wa kufiita wa hudiit wuqiita waa lagu ilaaliyey wax ma kugu dhacayo wa hudiita waa lagu hanuuniyey ma garatay marka maadaama ilaahay uu saas ii ballan qaaday ducadaasna aan ducaystay ima dili kartid ilaahay baa iga kaa celinaya macallinkii dambe waa macallin muslim ugu yaabay arrintii arrin yablay ku noqotay wuxuu yidhi war bal hadalkaa ku celi wuxuu yidhi yaa macallim aniga awalan idab darro ma samayn ثانيا aniga ima dili kartid leannu saaka waxaan kusoo ducaystay ducadaas ilaahay baa iga kaa celinaya macallinka wuu cabsaday wuxuu yidhi wallahi inaana ku dilay laakiin ina keen wuxuu u geeyey mudiirkii dhannaha ee madrasada u geeyey wuxuu yidhi ninkii manager maxaa la yidhaha meesha maamulaha iskuulka rectorkiibuu u geeyey wuxuu yidhi dhegayso yarkaan saasuu yidhi ninkii mudiirka ahaana madrasadii oo dhan buu soo ururiyey arrintii arrin weynay noqotay bal ilmaha yaqiintiisa fiiriya yaqiin dhab ah maadaama uu xadiidkaas maqlay waxaa lagu yidhi ilaahay baa ku ilaali wuxuu yidhi ima taaban kartid macallinow maxaa yeelay maanta ilaahay baa iga kaa ilaalinaya ducadaas ma soo iloobin adiga waxaa tiri waa soo iloobaa soo maaha haddaadan iloobin macallin kuma dilaayo mise meesha lama bedelo ciyaalka allahu latiifun bicibaadi allah yarzuqnaa waiyaakum yaqiinta allah na siiyo haddaan yaqiin la nimaadno dikriga ilaahayna aan daa'imno ilaahay subxaanahu watacaala khayr fara badan buu noo furayaa wax badan oo naga hadlaysanna waa noo hagaajinayaa wax kasta oo naga xumaada muslixuhaa huwa allah waxaan weyne ka nasiinayaana waa allah yaqiintaas dhab ah ayaa lanaga doonayaa dhibaato badan baa iska jirta waa la cabanayaa qof walbaba wax buu sheeganayaa الذي يقضي حاجتك هو الله أسبابتي أدمر الهيدون أذوها قفل أسبابتي أدمر الهيدون محي توسلوا إليه بالعمل الصالح يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أسبابتي كو سهل الهيد أذو الله إمو إلهي نبري حاجة هذا إلهي وكو قذي
buu yiri oon iri walle iyo bille waxaan aad heshay waa inaan goob doono aniguna khuruujkii meeshaan ka bilaabay buu sidii baan khuruujkii ku taagnay bal inaan yaqiinta soo taabto marka al-yaqiin ala kalaam Allah wa kalaam rasuulillah xadiid kale oo nabiga oranayo man qaala xiina yakhruju min baytihi gurigiisa markuu ka baxo ninkii yira bismillah tawakkaltu ala Allah ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا واتقن مياه يا كبري عليك يا كبري ما شاء الله معلم في عم هذا زادك الله قولي مركا كسو بحي اسم هذا مركزته هاي اللومن بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله شاكذا إذا دقيسة مركا شاكا أديك وكال كساب سنة كل شيء ما تقن هو يا كل شاكتي هو يفي عم بعض هذا ما شاء الله هذه أنا هرت كحسوستها والله المفجع في عم بعض ما يشكوها هشام بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله شاك هذا عظيم ما يروا كانوا كلام يا دعاء اسكت دعيستي سكولكو قال وده ماذا عربتك كذا صبحي مركا فصلك عيال كيبا أذو قار إذا بدرس سمين أسوي إذا بدرس سمين saragday haddana uma jeedno ninkii wuxuu yiri buu yiri arrin yaab loo keenay wuxuu yiri mid baan weydiinay xadiis nabiga ma maqasheen buu yiri saxiixa oo uu leeyahay man nazala manzil meel ninkii soo dago safar oo meel daga habeenkaas oo faqala yiraha a'uudu bi kalimaati llahi tammati min sharri ma khalaq ducadaas ducaysta لم يضره شيء حتى يرتحل شيئا وحبك مدبه الى او ميشها كغورو حديث كامل سو مري ها بيده وانا سو مري ما مقشين وا مقل هي حديث كاس تطبيقي شعاوه لا جوغا امير كنا سغوا بوقت وركي سلام سو علي كرو وحو الحديث كاس habeenkii la hirgelin lahaa baan joognaa meesha ka tagmayno nin walba ducada ku ducayso furaashkaagana seexo yaqiin dhabana qalbigaaga ka soo go'do maadaama nabigu hadalka yiri inuu dhab yahay waxba kuma yeelaan wuxuu ninkiiba ii sheekaynayo Soomaaliga ahaa ila qisada anigu ma joogin wuxuu yiri nin walba furaashkiisii uu seexday waa gogladay aniga furaashkaygii baan seexday meeshaan fariistay waa la ducaystay nin walba ducadaas oo akhristay waa la seexday wuxuu yiri iyagii baa qasaan idin sheegaya bari baan anagu meesha afgooy jamaa oo khuruuj fi sabiilillah u baxday barraayaan oo xamaran ka baxay xaqantay marka nin waxa ku jiray dadkan oo cadcadka oo reer afgooy ah ayaa wuxuu ahaa nin nashiid oo daaci oo khuruujkaas iyo baxo sheeku ka sheekay wuxuu yiri aniga sababtaan khuruujkan ku bilaabay markii hore wuxuu yiri nimankan aad u lama haynino masaajidka markay yimaadaan xataa geesi waxbaan uga leexleexan jiray waxa dhacday yiri niman Pakistan ka yimid masaajidkan afgooy ku soo tagay anna wuxuu yiri dukaan baa meesha ku leeyahay tafsiirna masaajidkan ka akhristaa xogay waan maalintaas baan habeenka baan isaga nacay ma iska ag fariisatay waa iska ag fariistay marka hadalka dhamaaday waxay dhaheen wanimayo waxaan u soconaa waa lugeynaynaa tuulo oo intaas oo kiiloomitir ma 10 buu igu yiri ma 15 hadda ma xusuustee oo baadiyaha ku taal baan u soconaa yaan u ducaynaa oo maaragtay noo nusraynayo na raacaya marka ana diyaar baan idin waa raacay sidii baan u raacay waa lugeyno yiri tuuladii baan tagnay habeenkii tuulada masaajid male geed quraca ayaa waab laga samaystay oo lagu tukadaa buu yiri oo salaadna kistaanka ahaa ee safarka ahaa هذا ودارنا يا سو وحول والله كما سو وريجين 10 دقيقة أما 5 دقيقة أما 8 دقيقة كل ما وده خورنا ينبغي خور هرد كلام واسع ده وكمان والله رسول وين هي كان عد مليه نعم نعم وحلو ويسحلين لكن أنيجي ورده وإيجان مويس هبين كيو دنقل قلش مركان شنقر يرمغل وحل واكه وصبح
هذا كقنيري مرنا واش عنان تاو وحن لابويري وكاله حاد كجد وناتي دد كان دعاء اخرين واخر شيء هذه محل سيحن ويد يقولوا ساعدين والله وحول سيدي لو اها قيام الليل بي وكعين بي واكعين واتكدين صلاه الصبح بلا تكدي انا سؤال برك ودادي ويدي waxaan iigu wax kala akhriseen mise kanu ba akhrideen ma kanu baan akhrinay hadii ku wasaxatan anigu habeenkii ugu dheer adduunka soo mar waa masaxan maxaa jira wallahi waxay dhahan insha Allah kulli ilaahay safarkeena iyo masaakiin baan noo dibadan ka nimido ilaahay inta nagu naxariisto yaqiin siya laga yaabaa adigana hadaad dadaasho ani maalintaas aan bilaabay dugsiga waa geedkii iska dagno wiil meesha alaab tala dhigtay habeenkii markii aan sii seexanayno furaashka nin walba furaashkiisa dhigtay mas iyo abeeso waxay tahay ma ogi weyn baa kor ka soo dhacay wiil geed korkiis oo aad weyn abeeso mas maxaa leeyahay afkan afisuudan ha urbu adu bagarana mas weyn meesha ka soo dhacay dhulku ku soo miduu furaashkiisa ku dhacay kadibna intuu cararay buu wuxuu galay oo dhex galay wala kala boodo nin walba meel buu booday la kala carariyo tosh maasha nal male tosh baa la haystaa wala raadiyay habeenkaas oo dhow wala waay maskaas miyuu ka sii baxay wala arkay mid weyn inuu yahay ma meeshuu ka sii galay ma meeshan uu ku dhex jiraa lama oga marka ninkii odayga uu ahaa amiirka uu ahaa jamaacada amiir leeyihiin bogtay ayaa wuxuu yiri waa la tashaday waxa la tashan bal war hala keeno waxaan sameynaa waqtigii hurdadana waa la joogaa meesha ma la saxan karaa ra'yiga laga qaaday war bal maxay kula tahay adiga war adna maxay kula tahay wuxuu yiri waxa loo batay ra'yi ah in meesha aan ka guurno meel kale aan tagno maadaama meeshii cadow aan ku